سيادة كوبا جوجا وأكو شهادة كبرتيدي وصوكا آيان نكتيدي ربان نكتاد ربا كبرتيدا كسيالي ما نكتاد ربا نبا أنت الوقف قبر سال يري أريد دبوس سان ونقا أنا قماتها ومايا waxay ila tahay in maalmo kadib xaafadan ay ka guuri doonaan dhammaan dadka ku nool maadaama ay toddobaadkan qaar ka mid ah qoysaskii deganaa ay bilaabeen inay naftooda kala baxaan amni darrada ka jirta halka aan taaganahay waa isgoyska wadada meydka waana soodinta kala qaybisa degmooyinka Kaaraan iyo Hiliwaa ee gobolka Banaadir xaafadan waa saldhigga ugu weyn ee kooxaha ciyaar weerarada ah iyo maleeshiyaadka hubeysan ee isticmaala maandooriyaha sidoo kalena iibiya dadka deegaanka waxay ii sheegeen in galab kasta isugu yimaadaan 4 kooxood oo ciyaar weerar ah barxad aan ka fogeyn xaafadooda waxayna ku kala qaataan warbixin iyo sidii ay u fulin lahaayeen howlgallada ay dadka ku dhibaateeyaan intii aan wadnay duubista waxaana soo dul istaagay 4 ka mid ah ragga madaxda u ah kooxaha ciyaar weerarada ah waxayna nagu amreen in aan joojino duubista aan ka wadno aagga lagu iibiyo maandooriyaha sidoo kalena uu ku yaalo guriga ay ku shiraan waxaana qaadanay go'aan aan kaga fogaanayno halka ay aad ku ilaashadaan wasla ayagii Soomaa kuwana ka tirsan kuwana ka tirsan qaybigii naa warbixin in la baahiisan oo galeen laakiin hadda heedii mukana waa cilmi xumo iska baa ma soo fikiraan qaybtan hadda dandan ma ka soo digi karaan buurka guri sartan oo ma soo dhaafi karaan ayaa intuu diiday inay soo gudbaan qola oo ciyaal waxay la shaqeeyaan أنا أبو سيسنا ماشى أمني جد ما في عنا هذا الله قرآن دل بكرة أنا جو حافظة الله ما هذا ناطل بناء سوي جرينا ناطل إبراهيم قرقدود وأبي كوي 8 سنة جرأة وحوي شيئين هبينكي وسوجيدو سوي لاليو أمني حاسكي سيجبدها ودلي maadaama uu deegaanka ka jiro kufsi xoog leh waxa uu iga sheekay qisadii dhaxmartay isaga iyo kooxaha burcadda ah markii ay soo weerareen gurigiisa xilli habeen ah xaafadan waxaan ku arkay daacadiga ah in aanu siiyatan jirin lagu soo galay gurigayga ee leeyiri yaa way inay leeyiri ee qalabka la soo baaliga soo kala kuday ee naaga inta lagu qufsada awadii aan ogahay waxaan kaloo ogahay in haddii la aduqna la aqaanin habarduqa la aqaanin naag yar la aqaanin odaduqa la aqaanin cunug kuma roono nima dariisna kuma roono intaasaan ka aweyna oo dib ka qabnaa qalabka la soo baxay guriga u yaal mariidaan isla waliba mariidaan la soo baxay wayga soo kudeen markaatay waxa ka ma sawirna ina qalabkayga haysay hadda biriga tagaan waxaan u ahay tagaan sadaarumi siyata ma jira dhiig ma rabo laakiin haddii guriga lagu soo ways xalaa nafta badbaadsa dadkaaga niman hab gabar dhalay amba gabar dhalay ma jirtaa horta lagu kufsamaa waa ku taabaha laba talabna qaadima nabad intaasaan ogahay haddaan laga soo gaarin waa ku taabaha waana lay saxiixa siyeetan iyo koobaan joogay haddaan laga soo gaarin waa lay saxiixa waana dila ma uu igu soo galan ku dila nabad waxdada oo xaafadan ay ku dileen ama gabar ku dhibaateeyeen waxay ku dileen nimay inta ku dileen nimay u soo galeen hadday u soo galeen way iska caawshay waa ka gudbeen nimay u galeen ninkii waa la ogyahay xaniintay la baxda xabad xaniintay la bax waa la ogyahay xaafada waa u soo xaafadana hooyo Faadumo Maxamed Cali oo ka mid ah haweenka ku nool degmada Kaaraan gaar ahaan xaafadaha ku yaala nawaaxiga wadada meydka waxay sheegtay in kufsiga haweenka iyo dhaca dadweynaha ay ka mid noqdeen nolosha caadiga ah hay'adaha amniga ee dawladda Soomaaliya waxay ku dhaliishay in aysan sugin amnigooda haddii ay hub qaataanna lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab war gabdhahay way kufsadaan ninkii yaa waa yiraana xabaday ku dhuftaan waa dhinsiya gabdhahana say gurigu joogaan ay tirihayaan wayna badan yihiin 10 markay yar yihiin 10 waay ma fahantay gabdhaha waa kufsadaa duq iyo qof weyn iyo qof yarna ma kala yaqaaniinba qof alla qoftay arkaan qofna waana dilayaan waana kufsanayaan gabdhaha qoftiba dumara waa kufsahayaan wax la og yahay ma jira hadda oo aad leedahay ama saddex wax la kufsaday aad ogtaa tira ha jiraan la ilaaha illa allah tira ma gasho tira ma gasho ma tiri karno annaga 3 sano dhibaatadaas qabnay
waxaan horta waan qambaaraynaynaa laakiin waxaa jira nimana waxay soo qaadeen bajaad saddexay yihiin amba waa labo taleefanyaday barqadi gurubsaayaan caawana waa imaanaya 3 sano dhibaatadaasaan qabnay waxaan ka codsanaynaa hay'adaha ay qusayso iyo dadka ay qusayso inay naga qabtaan dhibaatadan minaan kala qaadano oo dadkaas dib u geysano meeshaas alqaacida deganana la leeyahay ma fahanta waxaan rabnaa inaan nala dhihin alqaacida degan naloo soo gurmado nala maqlo intay qusayso Soomaali maxamed intay qusayso nagala qabta dhibaataan ku jirnaa ha nagala qabto hubka kaliya oo ay iibsadeen dadka ku nool xaafadahan waa fallaar iyo gamoon dhalinyaradu aad uma yaqaanaan hubkan si loo rido laakiin waxaa ku shaqeeya odayaasha da'da ah si ay u sugaan amniga gurigooda ninkan waayeelka ah ayaa ka tirsan kuwa aan seexan habeenkii maalintiina aan nasan xilli ay ahayd inuu helo daryeel iyo nasiino wanaagsan bahalahan waxaa la isaga celshaa cadow waana la dhibay waxaana dhibay niman dadka dilaaya oo dooxataa wixii dhalahayna kaa dhacaaya dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay naga qabato dowladaan shacab lahayn dowlad ma naqayso waxaan u baahannahay in nala ka qabto nimankaas hadda hubkaa isku difaacdaan waa kan hubkaan isku difaacna waa kan xaafadoo dhanba xaafadaha waxaa isku difaacaan halkaas hore miyaa u haysateen mise haddaa soo iibsateen nimankaana ay ku facyihiin haddaa la keen haddana waa kulli waa ku beerma u hayaan marka dowladda inay amba noo saxiixdo inaan iska dhicin ambay naga qabato dowladda ayaan ka codsanaynaa dadkii hal waa dhintay hal waa qaxsheen halna haddaa diyaarlooya inay dilaan marka waxaan u baahannahay dowladdu inay naga qabato nimankaas quudhaysatada inay naga qabato dowladaan shacab lahayna dowlad naqameen maxamed waaweyne waxa uu hormuud u yahay dadka ku nool xaafadahan dadaal kasta oo ay sameeyeen waxa uu ii sheegay inay garab ka waayeen hay'adaha ammaanka ee dowladda iyo mas'uuliyiinta degmada hadda wuxuu baaq u dirayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse cabdi barre oo ku mashquulsan sidii u dhisi laayeen hay'adaha kale ee dowladda waxaan dhibanayaal u nahay ciyaal weero middileey qoray xaafadan waxa lagu kufsadaa gabdhaha habeenkii waa lagu kufsadaa isgoyskana waa isgoyska oo rugta u ah oo isugu yimaadeen mar walba isugu yimaadeen waxaan ka rabnaa dawladda ka codsanaynaa inayna soo gaarto codkayna waa gudbinay marlamaad waa sii gudbinaynaa waxaan ka codsanaynaa inayna soo gaarto dawladdu booliiska Soomaaliyeed inuu yimaado xaafadan oo loo yaqaano jidka meydka oo isgoyskana oo ka kaco dhibka ka taagan guryahan aad u jeedin kulligood guri walba iyo iridiisa waa baqsantaa habeena gurigan loo soo galon toon mar loo soo galin ma jirto baaris aan sameynay waxaan ku ogaanay in amniga degmada Kaaraan aan xal loo heli karin ilaa laga saaro saraakiisha military iyo ciidanka xoogga leh oo ay wataan kuwaas oo dhex degan degmada kadibna howlgal wada jir ah ay sameeyaan saddexda ciidan ee booliiska nabad sugidda iyo militariga Soomaaliya sidoo kale waxaan baaristeena ku ogaanay in hubka wax lagu dhaco ay leeyihiin xubno saraakiil ah haddii la qabtana ay soo deystaan ninka burcadda ah iyo hubkii uu watay gudoomiyaha degmada iyo ku-xigeenadiisa iyo sidoo kale ciidamada booliiska haddii ay sameeyaan howlgal isla markaana ay dad ku dilaan howlgalkaas waxay ku qasban yihiin inay diyo bixiyaan mararka qaarna waxaa la dilaa dad ka mida ehelkooda sababo la xiriira aanooyin ka dhasha howlgalkii ay fuliyeen arrintaasi waxay sababtay in dad badan ay ka fogaadaan inay sameeyaan howlgalla ka dhana kooxaha burcadda ah oo dilkooda kadib u dhaadhaca qabiil iyo saraakiil dowladeed